Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan mar kale iyo muuqaal cusub. Maanta muuqaalkeena cusub waxaan ku baran doonaa 6 qodob oo aad muhiim u ah taasoo nafaqo u tahay haweenka uurka leh ama gabadha uurka leh. Midda koowaad waxaan ku baran doonaa maanta digirta ama cambuulada. Digirta ama cambuulada waxay borotiin u leedahay haweenka. Waxaa kaloo ku jiro ironkaasoo loo isticmaalo hooyada uurka leh in ay awood siiso. Lambar 2, asalaatada ama qudaarta. Asalaatada ama qudaarta cagaaran waxay nafaqo siisaa hooyada uurka leh. Waxaa ku jiro maadooyinka loo yaqaano vitamin B iyo vitamin B2 alif, taasoo sabab u ah hooyada inay nafaqo siiso ayada iyo cunugeeda caloosha ku jiro. Lambar 3, mooska. Mooska waan ognahay inuu faa'iido leeyahay sababtoo ah mooska waxaa ku jiro potassium iyo vitamin B2 alif, taasoo micno u yeelayso hooyada uurka leh in ay nafaqo ka hesho cuntooyinkan sida mooska. Waa in ay markasta isticmaashaa. Waxaa la leeyahay vitamin B2 alif wuxuu jirka hooyada uurka leh u xoojiyaa si heer sare leh. Wuxuu kaloo sameeyaa in maqaarka jirka hooyada uurka leh oo khafiif ka dhigo, taasoo jilcinayso markasteeto inaysan u baahan kareem. Lambar 4, malayga ama kalluunka. Kalluunka waa cuntooyinka aadka u nafaqada badan. Waxaa loo isticmaalaa inta badan cuntooyinka caadiga ah sida dabiiciga loo cuno, balse muhiimad ayuu leeyahay. Waxaa ku jiro maadada loo yaqaano iron iyo maadada aadka u weyn ee vitamin B2 alif. Hooyada uurka leh haddii isticmaasho malayga ama kalluunka, waxaa awood u siinayaa jirkeeda mar walbeeta inay iska difaaci karto xanuunada ama caafimaadka soo weeraraya jirkeeda. Waayo waxaa ku jiro maadada aadka muhiimka ah ee vitamin B2 alif. Vitamin B2 alif haddii aad maqasho waa cuntooyinka aadka u sareeyo ee nafaqooyinka laga helo. Lambar 5, baradhada. Haddii aad isticmaasho baradhada, wuxuu jirkaada u xoojinayaa si heer sare leh. Waxaa kaloo ku jiro maadadan baradhada vitamin 6, vitamin B, vitamin B2 alif, taasoo dhammaan jirka kor u qaadayso. Waxaa kaloo samaynaysaa in ay markasta ka hortagto caabuqyada jirka ku imaado sida infekshinka. Lambar 6, saliid saytuunka. Saliid saytuunka waxaan ognahay inuu aad muhiim u yahay, taasoo micnaheeda mar walbeeta loo sameeyo in hooyada uurka leh haddii ay isticmaasho uu awood siinayo. Awooddaas oo jirkeeda kor u qaadayso. Waxaa kaloo yaraanayo aneemiga sababtoo ah saliid saytuunkan haddii ay isticmaasho waxaa yaraanayo kale bararka lugaha ku imaanayo. Dhammaan waan fahanaa u malaynayaa. Dumarow ku dadaala 6dan cunno xilliyada uurka leh si caafimaadkaada u fiicnaado. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.